waa nidaam cusub oo horseedeen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Jariban iyo maamulkooda kadib kala fadhigii 18aad fadhigiisa labaad oo ahaa fadhi daahfuran oo ay bulshadu ka qayb galeen sida nabadoono ururada haweenka dhalinyarada booliiska maxkamadda iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug kaas oo si daahfuran ay uga qayb galeen kala fadhigan golaha deegaanka kaas oo dhammaan looga hadlayay horumarinta degmada Jariban kulankan ayaa ahaa mid ay baarlamanku kula xisaabtamayeen maamulka degmada gaar ahaan guddiga fulinta si kale hadii aan u dhahno waa gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha dawladda hoose ee degmada Jariban su'aalo dhammaan looga hadlayay wixii qabsoomay iyo sidii degmadu ay horumar ka baaxad weyn meesha ay hadda marayso degmada Jariban ayaa ka soo baxay kulanka kala fadhiga golaha deegaanka ee degmada Jariban waxaana xusid mudan kulankan in uu yaalay mooshin qaar ka mid ah guddiga fulinta laga keenay kaas oo isla xisaabtan kadib meesha ka baxay waa markii ugu horeysay oo Puntland uu ka furmo kala fadhi lagula xisaabtamayo maamulka degmada isla markaasna bulshada iyo baarlamanku ay isku mid su'aalo u weydiinayaan maamulka degmada doorna ay ku leeyihiin kala fadhi muddo soconaya waxaan kaloo su'aashaydu ku dhamaystirayaa sharciga ku wada shaqeynayno waan ku wada joogno oo aanu u hogaansanayo lowla marsamed ma hogaansana inka yiraahdo gudoomiyaha ku-xigeenka su'aalaya waxaad ku timid xasaanad iyo doorasho taytalka asiyatin 22 iyagaas marka la kala qaado annaga is dooranay dawladda dhexaana baana noo idmatay xildhibaanku wuxuu xasaanad helaa markuu local horta ka soo baxo oo meesha uu ka soo galay ay soo doorato wasaaraduna shaaciso marka la dhaariyo buu xasaanada helaa xasaanada adoo ku soo baxay election baa dhacay doorasho ku timi waxaan rabnaa inaad yaanaha nala wadaagtid waxa jirta xildhibaanada wax ay wadaageen wixii ay baasgareeyeen oo isku raaceen waa aad joojisay sharciga u adeegsatay iyo qodobka anigu mooshinka iyo xilka qaadista diyaar uma ahayn ilaa runta fiican moogtahay laakiin waxaan diyaar u ahay ilaa iyo meesha ugu dambayso oo wax ku saxmayaan in la aado oo aan sokay waxba laga soo marin inaan la iscaayno waa rabaayo aan maaragtay siyaabo qanjaafula gurmaaxa oo quruna oo inaga ina ku soo noqonaysa inaan loo wada hadlin si hufan in loo wada hadlo gudoomiye waxaan ogahay anigu mashaariic degmadaan leedahay oo timid oo noqotay oo meel kale laga fuliyay ma wax la waayay meel kale ka fushi oo balaayiin dollar caqabada dhaqaalahaas Puntland ka soo baxay gobolka Mudug soo maray degmada Jariban yimid oo aan ka fulin oo ka noqday caqabada sayid halkan ma kaaga rabaa isla waa xoghayaha weey waa dakhliga meesha ugu daran oo aan ku baabaano wayada qodobka 63aad farqadiisa labaad waxay qeexaysaa in la helo noocyada canshuuraha iyo diyaarinta dakhliga soo xarooday su'aasha waxaan u dhigayaa ma haysaa liis dhameystiran oo qeexaya noocyada canshuuraha degmada cabashooyinka oo xildhibaanku weydiiyey dabcan wixii cabashaa caqabadaha jira cabashadaha waa la soo diinayaa inaan ka shaqeyna diyaar baan u nahay wixii hadda aan dhaafnana diyaar baan u nahay mashaariicda annaga oo joogna nala kama soo qayb geliyo waa dhibaatada weyn oo degmada haystaa yaa yidhi xildhibaanow mashaariic ka qayb gal lowgaan barada oo jeebka noogu jiro lowla marsamada yidhaahdo xaggee bay ugu qoraya golaha fulintu shaqay leedahay maxaan ku raahdaa xildhibaanna golaha joogtaduna wuxuu leeyahay wixii wiigaa la qabtay shaqadii socotay inay nowd ka qaataan golaha maxaan ku raahdaa xildhibaanaduna xisaabtan bay leeyihiin annaga waxaan degma ahaan garannay oo aniga gudoomiye ahaan iyo golaha iyagii fulintu maadaama Jariban waxa ugu badan oo ay abuurtaan ama jira ay yihiin problemka in aan everything oo timaada inta wada fariisano golihii joogtadii annagu inaan qaybino
ma imaan jariiban wax aan golaha joogtada iyo golaha fitayo halka fadhiya ay saqaybin ana waxa ugu qabsatay wasaaraduhu ugu qabsadaan oo waxay ugu qabsadeen hay'aduhu waay gudoomiye aad anaga maxaan ku xildhibaan ugu baraysaa maxaa shaqada xildhibaanka galay shaqada fulintu shaqadeeda xildhibaanada joogtada ama xildhibaanadu shaqadeeyeen marka in maanta xildhibaan aniga uu yaani dacwo igu qoro mashaariic fulinta ka soo dulacayo aan la yeerin oo sharciga ku taala inaan ku yeero golaha baarlamaanka oo dhameystiran baa 100 kaar waxay yiraahdeen dadka noocaas aan siin gudoomiyaha soo jeedin waa la isku raac dadkaasina waxay ahayd dad disable oo la soo diiwaan geliyay oo anaga aan markaas noo diiwaan gashanayno miiska noo saareen kala sukulkoodii laakiin la soo qoray degmada guddi bay leedahay dadka baahiyaha gaarka qaba degmaduna guddi bay leedahay dadkaas soo qoridooda guddiga ma marin golahan deegaankana iyadoo oo banaano aan soo qorin inta ka fariisteen ma ansixin laakiin xafiiska ayay ka timi dhibna kama qabinano example qof golaha deegaanka kamid wax wanaagsan hadduu keeno oo lala qaato dambi kuma qabo 100 kaas markaan dadkaas siinay waxaa ka dhashay karees guddigii 12 xubnood way guddi qayb baa hadda fadhidaan malayn 12 ka xubnood waa u yeernay waxaan rabnaa 100 ka qof baan wax siinay waa dadka noocaasa ma naqaan waxay yihiin ma aanu aqriin warqadooda ma naqaan waxa idin ka codsanaynaa 100 kaas kaar ina 100 ka qof meesha ku qoran siisa ma naqaan waxay yihiin dad baa soo qorayo liiska meesha la keeno hatta gudoomiyaha ma aqoon xildhibaanana yaqaan kuma jiro guddiga 12 ka way diideen ilaaqna ma kala gabagabadii ayaa laga soo saaray guddiyo lagu horumarinayo degmada Jariban kuwaas oo la doonayo muddada 6 bilood ah ee soo socota degmadu meesha ay marayso meel ka sii sareysa inay gaarto kuwaas oo la shaqayn doona guddiga fulinta ee degmada Jariban gaar ahaan gudoomiyaha ku xigeenka iyo waliba xogayaha dawladda hoose guddi waxa weeye guddiga horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo dabagalka guddiga labaad asna 7 xubnood buu ka kooban yahay guddiga ilaalinta xuduudaha xalinta khilaafaadka wacyigelinta dhismaha xaafadaha iyo degsiimooyinka kulanku waa inoo xiran yahay dhammaantiin waa mahadsantihiin xildhibaanadii safarada soo galay bulshadii inoo fadhiday xildhibaanadii tabashada qabay cabdi khayr maxamed jamac puntland tv degmada Jariban ee gobolka Mudug